ilaalinta deegaanka waxa uu xil ka saaran yahay guud ahaanba bulshada miyiga iyo magaalada. Marka la helo deegaan wanaagsan ayaa la helaa nolol wanaagsan. Bariyahan dambe waxa sii kordhayay dhibaatada lagu hayo deegaanka qaybihiisa kala duwan waxaana ka dhuxusha laga shidayo dhirta nool. Cilmi baaris ay samaysay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland waxa lagu ogaaday in 65% dhuxusha lagu isticmaalo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera laga soo shido dhirta nool halka dhuxusha lagu isticmaalo magaalada Burco 25% laga soo shido dhirta nool. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in dadka ugu badan ee dhirta shida ay yihiin dad u dhaxaysa 17 ilaa 30 jirka waadada dhalinyarada iyadoo warbixintu xustay in lacagta ay ka helaan dhuxusha marka laga reebo in yar oo nolol maalmeedkooda ay ku iibsadaan balwadaha sida qaadka iyo sigaarka. nolol maalmeedka maba ahaba ee bariis la cunayo hadii ahaan la qofku bariis cunay ciilba ma qano maba ahaba de waxa weeyaan anu taan qoonsan weeyaan waa jaab waa geed u dhintay geed u dhintay sida ay sheegeen khubarada dhinaca deegaanku inta badan abaaraha soo noqonaya ee Soomaaliland waxa loo aanaynayaa in ay keento xaalufka dhulka iyo gumaadka dhirta nool ee dhuxusha laga shidayo iyadoo abaarahaasina galaaftaan dadka iyo dunyadaba. wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa mar labaad sharaxaysa dhibaatada ugu weyn ee xilligan haysata deegaanka. runtii warwar badan waxay nagu hayaa laba xaaladood inkastoo maaragtay warwarku iska badan yahay oo markaad eegto deegaanka waxa ku dhacaya maanta culayska ku dhacaya uu fara badan yahay hadana labada ugu badan waxa weyn waa xaalufka iyo dhirtu la gooynayo oo dhuxul loo shidayo labadaas horta problemka ugu weyn ayuu maanta dalka Soomaaliland ku haya in muddo imika intii wasaaraddu jirtay marba heer ha soo taagnaatay shaqo fara badan oo la soo qabtay shaqada aan maanta qabanayna runtii isbedel way keentay oo waa taaban kartaa isbedel la taaban karo way keentay hadana kow ma joogno haddaba maadaama ay wasaaradda deegaanku tahay hay'adda qaranka uga mas'uulka ilaalinta dejinta iyo dabagalka mashaariicda lagu horumarinayo deegaanka wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa mashaariic kala duwan waxaana kamid ah mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee ay maalgelinayaan wadamada Ingiriiska, Denmark, Norway iyo wadanka Holland. mashruucaasi waa mashruuc waxa weeyaan ballaaran aad u ballaaran mashruucaasi wax ku ool ah oo la taaban karo ayuu keenay runtii mashaariicda ugu waaweyn ee maanta dalka Soomaaliland ka socota anagoo kaliya ma wasaarado badanna la shaqeysa iyo hay'ado gaarana la shaqeysa mashruucaasi uu bilaabmay si wanaagsan buu bilaabmay sidii loogu talagalayna uu bilaabmay waxa anagu intii aanu qoranay ee anaga xaggayaga ay ahayd si wanaagsan bay wada socdaan mashaariicdaasi koow waxa ka xafiisyada dhan oo dib loo wada dhiso oo 8 xafiis cusub iyo mid dib u habeyn ay ku qoran tahay oo isagana imika ay socoto tog dheer iyo 8 cusub oo ilaa Cergaaba ah qalabeyntoodii oo iyaguna ku xigta iyo tababarkii shaqaalaha oo la tababaray badbaa ka baxay imika xarunta oo dhan waa la tababaray waxa weey loo gudbayaa imika riijanadii baa loo gudbayaa marka mashruucaasi qaybtiisa koobaad waa ta qaybtiisa labaad oo dhirayntii ah waa tan anagu maanta leenahay qaybna waa la bixiyay oo 5 June baa la bixiyay bishii 5 baa la bixiyay qaybtii labaad baa imka la bixinayo waad ku aragteen TV-yada iyo maartay idaacadaba talabaad kalena waxa weeyaan haduu alla ku roon yahay meelihii laga dhisayay iyaga qudhoodu xarumaha dhirta lagu ilaaliyo ama lagu kaydiyo oo aan neerseriyadii oo lixa oo iyaga qudhoodu si wanaagsan imka iyaguna u socda waxa kamid ah dhulka iyo nabaadkii la soo celinayo oo moosas loo samaynayo moosaskaas la samaynayaana imka oo kumaanku moosa maaha moos 102 iyo 1000 maaha kumaanku moos oo la samaynayo 7 meelood bay iyaguna ka socdaan imka baabuurtan imka lagu shaqeynayo kor mashruuc walba baabuur baa ku qoran mashruuc walba baabuurka ku qoran saas ay ordayaan mid walba gaariga ku qoran shaqaalahooda ku qoran wasaaradda deegaanku iyadoo ka duuleysa dhibaatada sii kordhaysa lagu hayo deegaanka waxa ay ku dhawaaqday in la dhaqan gelin doono shuruuc adag oo lagula dagaalamayo cid kasta oo dhibaato ku haysa deegaanka wasaaradda ahaan waa shuruucda waanu siday u tahay baan u apply gareynayna ama dadka ugu dhaqayna aan hadal lahayn waxa weeyaan sharciga wax kala looma dhigan waxa loo dhigtay waxa weeyaan inuu hago distoorka dhanbayna hagaya shuruucdeena kala hagaysa hadaan marka ixtiraamin sharcigi dib bay noqonaysaa ka dulboodo qofkii waxbuu sameeynaya markii wax sameeyo qof markaad soo qabato qof ka daba imanay daqiiqadiiba
mid baa ka daba imanaya haddana haddii kaasi sii deyn kar waa caaqil buu keenaya haddii caaqilku sidoo suldaankii buu keenaya waxaad moodaaba in saf loo soo galayba in sharcigaaba la eeginba wax allaaliya waxa halkaa maanta dhuxul daadsan halkaa Hargeysa markaad ka baxdo ilaa aad laascaanood ka gaarayso wadaday taa markaad xagga bariga galbeedka u kacdana wadaday taa maanta laga bilaabo imika waxaanu soo saaraynaa waanta laga bilaabo soo maanta maaha 7 casho gudahood ayaanu doonaynaa inaanu haddaanu ku aragno annagu ku aragno militariga iyo booliisku baanu leenahay qaata ka gurta askartay ka qaada imikana waxaanu soo saaraynaa xaabadii haddii lagu qabto ama hudheelka ama lagu qabto suuqa ama baabuurtan xaabadee fooqa ilmo faarax joomo hor taagan ama xagga dambe taagan haddaanu ku qabino geedaan garan waa ahayn waanu kala degaynaa ayagana waa lagu khasirayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxay bulshada ugu baaqaysaa in meel looga soo wada jeesto ilaalinta deegaanka si loo helo deegaan wanaagsan iyo nolol wanaagsan waxa weeyaan fariintaydu waxa weeyaan adduunku wuu isbedel cimiladuna way isbedeshay innaga maanta indheena ku arkayna in cimiladu isbedeshay cid inoo soo sheegayso kale ma jirto waynu yaabana talo maxaa dhacay baynu leeyahay cimilada isbedeshay waa waxa gudaha yaala marka cimiladu isbedesho ee adigu kow ka tahay Soomaaliya wax laga qabto waxaan aanu dadka Soomaaliland meel kasta joogaan leeyahay aan ummadda u sheegayna war cimiladan isbedeshay aan la jaan qaadno sidaynu wax u bedelnayno kow maxaa ka ah waxa ka ah aad arkaysaa waxa weeyaan waa dhirta geedku haddaanad dhaqaalayn oo aanad geed beerin diinteenaaba ina tiri adduunyada la soo rogayo oo lagu sheegay oo geed gacanta ku haysa geedka beer jannada ku aad hadsanaysaa waa dhirta aynu iska dayno dhuxushan oo inuu ka waantowno dhuxushan oo dhuxusha wixii lagu bedelaa maanta way yaalan wasaaradda dhanba ayana shaqo ku leh wasaaradda tamarta ayaa iyaduna u ordaysa war wixii lagu bedelaa suuq yaala am iska bedel farintan faray waxa weeye deegaanka baaba iyo deegaanka ay soo cisheen barnaamijkan waxaa idiin soo saaray xafiiska xiriirka dadweynaha ee SDF Communication Hub ee wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland